Erey wanaagsan uu yiri dartii ayuu Alle ku badbaadiyey kadib markii uu geeri qarka u fuulay. Qaboojiyihii kalluunka ayaa ku xirmay. Bara bixinta ereyga wanaagsan waxaa laga yaabaa inay ku badbaadiso maalin uun. Ninka sawirka ka muuqda oo ciidanku sii wadaan waa shaqaale ka shaqaynaya warshad kaydinta iyo qaboojinta kalluunka oo ku taalay dalka Jarmalka. Maalin maalmaha ka mid ah ka hor intii aanay dhammaan shaqadii ayaa wuxuu galay qaboojiyaha kalluunka si uu u qabto shaqadii ugu dambeysay ee maalintaas. Waxaa dhacday isaga oo shaqadiisa gudanaya oo ku jira gudaha qaboojiyaha kalluunka inuu albaabkii talaagadu isxidhay. Ninkii wuxuu damcay inuu albaabkii iska furo, balse way u suuroobi weyday. Wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo uu codkiisa kor u qaado, isagoo isku dayaya inay shaqaaluhu maqlaan dhawaqiisa si ay u caawiyaan. Balse waxay ahayd xilli shaqadu dhammaatay oo aanay jirin cid ku hadhay warshadda. Iyada oo ka soo wareegatay muddo ku dhow 5 saacadood oo ninkiina uu ku dhowaa inuu dhinto qabowga daran awgii, ayaa waardiyihii warshadda furay albaabkii talaagada oo badbaadiyey ninkii. Mar uu maareeyaha warshadda weydiiyey waardiyihii warshadda, sidee ayaad ku ogaatay in ninku uu ku jiro gudaha warshadda oo aanu la bixin shaqaalaha intiisa kale? Waardiyihii wuxuu yidhi, 30 sano ayaan ka shaqaynayay warshaddan. Boqolaal shaqaale oo ka shaqeeya ayaa maalin walba ka soo baxa warshaddan. Midkoodna maalin ima salaamin oo xaaladeyda wax igama weydiinin, ninkan mooyaane. Laakiin dhammaadkii maalintaas warkiisa ma maqal oo waan tabay. Kadib markii ay shaqaalihii ka baxeen warshadda, waxaan gartay inuu weli ku jiro gudaha. Markaa ayaan raadiyey ilaa aan furay qaboojiyaha oo aan ka helay isaga oo xaalad adag ku sugan. Ugu dambeyn Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, waquuluu linnaasi xusnan, dadka ku dhaha qowlka intiisa wanaagsan. Ereyga wanaagsani waa furaha quluubta. Waxaa laga yaabaa in erey naxariis leh oo aan si dhaba loo qaadan uu rajo ku abuuro nafta qof kale oo laga yaabo inaadan adigu ogeyn ama aad dareemin inta uu la eg yahay ereygu. Laakiin qofka kale isaga ayaa og oo dareemaya. Ha quusan oo samee wixii macruuf ah, kelmadna ha noqotee, ayuu leeyahay qoraha sheekadan Cabdulla Faarax. Qisadan iyo casharka ku jiraba waxaan rajeynayaa inaad nala garateen. La wadaag asxaabta kale si ay iyagana uga bogtaan waxna ugu qaataan oo inoo share gareeya.